أم بخلنا إلى يجاز كلام مهرله waxaan kale ilaa mahad leh jaaliyadda iyo hablaha ay dahab u horeyso iyo Maryam waxaan maamulayaa Atore gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya oo isday u casuumay waxaan ana waqti uu yaryahay oo handana lahayn balmo badan waxaan u aqbalnay inaan imaamno xafladiina waxay u kala waxweeyeen inaan idin tuso Soomaaliland ma kala sheego ana la u sheegay inaan ahay extremist Somali diidayeen baan intusiyaa oo kaygu ugu fogeeyay milaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa isna Cabdisamed iyo akhyaartii la socotay shirkan ka socotay waxaan jecel marka hore inaan ka hadlo qodobadan aan ku shirnay maanta soo saarnay qodobadan maanta aan ku shirnay soo saarnay laba maalmood وصار الشيء عايزين نصير فيه لأن جنب فيلين أنت عم تكسرنا ولا ضم بجانب أتبرع إن أنا جو وأحمد السن كأني لو ساعد بويه ليه فيلين هذا حكون تمي ده خيارة وحكينا كيمي أو مجانا ساي أبسين تدور سياسة قاطين oo magaranaysaa wixii hore ku hali jirtay in dadka si kala fogeeyay iska daayay oo reality-ga waxa uu ka yaala iyo baahida maanta Soomaalidu u baahan tahay nabad oo waliba u baahan tahay qodobada waxa weeye waa qodobadii laga duuli lahaa wixii mustaqbal ee laga wada hadlayo waxaan ku wada hadlaynaa maxay kala waxaan nahay markaan inaan ku wada hadalno Soomaaliya sababtii lixdankii ee iskumaan tagin 4.5 iskumaan tagin waxaan isku tagay markaa waxa weeye وقتين مركان اسكو تاغناي لحدانكي inagoo laba dawladood iyo laba baarmaan leh baan isku tagnay iduguna Soomaaliya dawladda anaguna Somaliland balaadho Somaliland protectorate iyo Soomaaliya waxaan la baxnay Somali Republic hadda Soomaaliya waxa Suudaan Soomaaliya oo dib waa weyn idin gaar ahaan jirtay anaga laga magacii naga dhaxay Soomaaliya marka si aynu dadka nabad u soo socono aynu ka saarno tishuushka iyo caadifada qabiilka ayaa horta aan u galay waxa weeye Soomaali min isku tagtay waxa burburiya qabiil buu ahaa wada lagu jabay lagu noqdo tii baynu hoos uga sidaan waxaan qabiilhin ila hadda la doonay dawladda qabaa'il la sameeyo oo xaqli gal aan galin in aan inta qaato aan khariidad qaato ilaaho heerkeedii deegaan maamul sameeynaya wax adduunka lagu arkay ma qof wala Soomaaliya gaarayay qof Soomaaliya Soomaaliya kala weyn ee haddana xaydaal qabiil sameeysanaya waa munaafiqnimo laba ma isqaban kara wadaka si waxa weeye وطبعا إن شاء الله تعالى وحي إلهي إنوهم ما كل جارو وقتين إلهي نجارو ترى إلهي ولا صار تشعشي ما سام شعلنا ما سيد إلهي سبحانه وتعالى خير كتشرو أيوة غلط هاي إلهي نجارس كان محكي شيء يدنا في عن عبد السمد يا خيارتي سوينوي مادين أنا قلنا أنا قلبه يا سمس أنا أقول هذا في السومال النهاية سومالي من واحد سنة سومالي معين كل يلا باتاك أصلا الله ضد قال مسين يعني تمردر ما يشين وكان واحدة بعطيه دي من بيس إذا سومالي معين
ilaa saacad u dambaysay inaanu siyaad bare la dagaal